السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh asxaabteena meel walbaan kala joogna ilaahay subxaana watacaala ha inagu kala xifdiyo lix qodob oo aad ku gaari karto hadaf kasta oo aad leedahay runtii gaarista wax walba aad rabtid nolosha kaagama baahna inaad yeelato awood gooni ah oo aan bini aadamka lahayn balse waxay u baahan tahay uun inaad raacdo oo aad xijisato tallaabooyin gaar ah oo u shaqayn kara qof kasta oo bini aadam ah oo sameeya iyadoo ay xaqiiq tahay in qof kasta oo sameeya isla markaana raaca lixdan qodob uu ku gaari doono hadaf kasta uu leeyahay kow qor yoolalkaaga xitaa haddii aad og tahay waxaad rabto dhab ahaantii qorista yoolalkaaga waxay si dhab ah kugu sahlaysaa gaaristeeda kuguna qeexaysaa qoristaas inay waxtar badan leedahay hubi inay kuu muuqdaan taasoo kuu sahlaysa xasuusin joogto ah oo ku saabsan wixii aad goosatay inaad gaarto isku day inaad ku qorto warqad kuna dhejisato muraayadda aad subaxdii markii aad soo kacdid indhahaagu ay qabanayaan albaabka aad mar walba furaysid derbiga ay u badan tahay ishaadu iyo meel walba oo aad guriga ugu isticmaal badan tahay ku dheji xasuusinta ahdaaftaada si aad maalin walba u aragto kuguna noqoto xasuusin lama ilaawaan ah kuuna siiso mar walba shidaal laba jibaaran si walba aad u daalan tahay una niyad jabsan tahay labo ahow mid u sabra naftiisa Roma wasn't built in a day Roma laguma dhisin lagumana taagin maalin gudaheed gaarista yoolalkaagana qasab ma aha inay u dhacdo si xawli ah ama si fudud waxayna u baahan tahay inay qaadato saacado iyo sannado shaqo adag waxa walba oo wanaagsan ee noloshuna waxay u baahan yihiin waqti badan aad gelisid oo aad ku bixisid adiguna waxaad heli doontaa faa'iidooyin la mahdiyo saddex u khaas yeel waqti asbuucaaga ka mid ah si aad u gaarto ahdaaftaada halkii aad isku dayi lahayd inaad ku degdegto mashruucaaga ama yoolashaada u ogolow naftaada hal saac maalintii asbuuc walba si aad ugu shaqayso yoolal hooseedyo yaryar oo gacan weyn ka geysan doona aragtidaada gaarista yoolalkaaga waaweyn asbuuc walba oo aad u qabato howlaha qaybo yaryar waxay kaa ilaalinaysaa quusasho iyo niyad jab ka imaan kara inta aad ku guda jirtid safarkaaga gaarista ahdaaftaada iyo yoolashaada waxaadna yeelanaysaa mar walba hididiilo iyo awood cusub afar u dabaaldeg guulahaaga haba yaraadaane mararka qaarkood haddii aad dareento inaad aad uga fog tahay inaad gaadho ahdaaftaadii muhiimka ahaa aadna dareento inaad uga dhowdahay halkii aad kasoo bilowday yacni dareenkaagu uu siinayo firfircoonin walba aad samaynaysid iyo dadaal walba aad qabanaysid inaad gaarista yoolkaaga iyo hadafkaaga aad uga fog tahay ugana dhowdahay meeshii aad kasoo bilowday xasuusnow arrinku sidaas ma aha waxaa jira ahdaaftan waxaa lagu magacaabaa ahdaafta u baahan waqtiga dheer raadi waddo ama qaab aad ku abaalmariso naftaada hadday ahaan lahayd cunto ay jeceshahay haddii ay ahaan lahayd meel indhaha iyo naftaba u roon waayo abaalmarinta aad ku abaalmarisid nafta waxa ay samaysay ama guulaha ay kasoo hoyeysay yoolashaadii haba yaraadaane waxay ku siinaysaa mar walba hididiilo aad wax cusub ku bilowd ku abaalmari naftaada wax ilaahay uu raali ka yahay shan xusuusnow in wadooyinka oo kaa xirma ama jidgooyooyinka kugu dhici doona aysan ahayn guuldarro waxaynu ognahay haddii uu albaab kaa xirmo in allah subxaana watacaala ugu furayo albaab kale wax walba oo ku soo wajaha ama guuldarro walba oo kugu dhacda ha isdhihin way ku dhammaatay aqbal caqabadaha caqabad walba aqbal oo wajah dhehna yaa rabbi bedel khayr qaba iigu bedel waxaan aan ku fashilmay ama waxaan aan ku guuldaraystay ogowna noloshu kuma siinayso roog cas guushaadana kuma gaaraysid wax walba iyadoo si kuu saxan ay tahay haddii aad ku gaartna ogow wax walba noloshu waa imtixaan waxaa lagugu imtixaamayaa waxaad rabtid inaad si fudud u heshid iyo inaad waxaad rabtay inay kugu qaadato waqti aad u dheer adigoo la eegaya saburkaaga iyo adkaysigaaga noloshuna waxaa marar badan dhacda inaysan ku siinayn qorshaha sidaad u dhigatid ee mar walba ahow mid ilaahay subxaana watacaala qorsho walba uu leeyahay uu la kaashado waxaana dhici doonta inay derbiyaal badan kaasoo xirmaan albaabo badanna iska kaa xiraan ha isdhiibin marna hana u arkin inay tahay caqabad iyo wax gu dhacaya adiga u arag inay tahay fursad aad kaga tilaabi kartid kagana
gudbi kartid kuna gaari kartid ahdaaftaada. 6 dhagayso dhaleecooyinka ku soo gaari doona hana u qaadan si shakhsiyadeed in lagu naqdiyo ama in lagu dhaleeceeyo ma aha weerar shakhsiyadeed ee lagu qaadayo howlahaaga shaqadaada iyo yoolalkaaga kaagamana furna adiga fursad aad ku hesho difaac aad isku difaacdid aadna ku difaacdid yoolashaada iyo howlahaaga iyo kartidaadana aad bini'aadamka ugu sharaxdid beddelkii aad difaac geli lahayd u qaado dhaleecaynta oo u isticmaal si aad u hagaajiso yoolalkaaga iyo habka aad halkaas ku gaarayso. Dhaleecayntu waxay inoo ogolaanaysaa inaan laba jibaarno shaqadeena kuna eegno indho cusub oo ayna siiso awood iyo waxqabad ka sii weyn waa haddii aad ku eegto indho shinni waayo shinnidu waxay maalintii oo dhan indhaha la raacdaa oo ay raadisaa wax kasta oo macaan oo ay malab ka samayn karto. Adiguna indhahaagu yaysan arkin dhaleecaynta ee u isticmaal dhaleecaynta shidaal kuu horseeda guulooyin waaweyn. Ogowna guushu waxay mar walba ku timaadaa qalad samayn iyo ku celcelin. Waa inaad barataa sida loo aqbalo guuldarrada iyo sida loo wado socdaalkaaga xataa hadday kaa hor imaanayaan diidmooyin badan. Waxaa hubaal ah in 6dan tallaabo ay kaa caawin doonaan gaarista ahdaaftaada waana 6da tallaabo oo kala saarta dadka guulaysta iyo dadka fashilma. Guuldarradu ma aha micnaheedu inaadan guul gaari karin ama aadan u qalmin guusha balse waa inaad si fiican u fahmin qaabka guusha loo gaaro ama yoolashaada loo xaqiijiyo. waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyowga ha ilaawin inaad like garaysid share garaysid haddii aadan ka mid ahayn asxaabteenane fadlan nagu soo biir waxaad ka heli doontaa kanaalkan waxaad ku mahadisid adduunya aakhiraba. waxaan idinka tegayaa intaan fiidiyow kala kulmayno anigoo ah Khadra Cali fi amaanillah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.